بسم الله الرحمن الرحيم. دمانتين وان سلامي ملكستو جوجتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan usoo galay dhowr arrimood. Marka ugu horeysa waxaan hambaliyo u dirayaa ururka Jowxo ama ONLF oo runtii qabsaday shir taariikhi ah oo maaragtay hufnaan iyo maaragtay Soomaalinimo ay ku dheehan tahay
I know dad badan oo saaxiibanahay waxay u leeyihiin ONLF waa hal qabiil. qabiilkay doonaanba ha ahaadeen soo dad Soomaaliya maaha. dad Soomaali ah oo maaragtay weliba Soomaalidu markay sii waxayso dad waxaan la hadlayaa markaa dadkii su'aalaha ay soo weydiinayay Soomaali weliba kuwii inoogu xiga weeye. marka inaan u hambalyeeyno oo shirka ay qabteen runtii ay isugu yeedheen gobollada intoodii badnaa in loogu hambalyeeyo way mudan yihiin. waxa kale oo ay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo iyagoo Soomaali oo keliya ah oo wax ajnabiya uusan dhex fadhiyin in ay qabsadaan doorasho xor iyo xalaal ah oo live loo wada daawanayo oo 600 oo ergey inka badan ay codaysay. waa arrin ku cusub runtii Soomaali oo dhan meel kastoo adduunka ay ka degan tahay. waa arrin ku cusub dalkan hadda inagu aynu ka mid nahay Ethiopia. waa arrin ku cusub inta badan runtii wadamada Afrikaanka ah. marka in loo hambalyeeyo runtii way mudan yihiin. ta kale ONLF waa waxa aas-aasay oo aas-aaskeedii iyo fikirkeedii lahaaba dad Soomaaliya ayay ahaayeen, dhalinyaro Soomaaliyeed. qabiilkay doonaan ha noqdaan, ay careless qabiilka ay yihiin. ujeedadooduna waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee gumaysiga xabashada ku hoos jirtay inay ka saaraan. marka fikirka saliimka ee Soomaalinimada ah in lagu taageero way mudan yihiin. marka hambaliyadaasaan marka hore yaan rabaa inaan maaragtay aan soo jeediyo guud ahaan ururka guud ahaan shacabka Soomaalida ee maaragtay Somali State, gaar ahaan ururka ONLF iyo guddoomiyaheeda cusub ee la doortay Dr. Madey oo isna aan u hambaliyeynayo, iyo dadkii ka qayb galay shirka. waxaan sidoo kale u hambaliyeynayaa hay-adihii ammaanka sugay ee amniga ee Somali State oo ay kow ka yihiin ciidankeena Liu Booliska iyo cid kasta oo qayb ka ahayd in shirkaasi Soomaaliyeed uu u qabsoomo si sharaf leh. arrinka ONLF markaan intaa kaga gudbo waxaan rabay inaan taabto oo xogay xisbigan faasidka ah ee hadda ka taliya Somali State. xisbigan faasidkii horta waa kee haddaynu su-aasha isweydiino. xisbigani waa kii 1994 kii baan u malaynayaa xoogga lagu aasaasay. waa kii kooxdii markaa la baxday Lego oo maaragtay ay EPRDF ay xoog ku keentay kilka iyo regionka, iyo dad yaroo kasoo haray ONLF markii ay qaadatay go-aankii ahaa inay dagaal gasho, oo weliba xubnihii muhiimka ahaa laga saaray. tusaale waxaan usoo qaadan karaa Ismaaciil Sheekh Cabdi Doolaal iyo maaragtay ninka la yidhahdo Cali Baashi iyo raggii muhiimka ahaa ee xitaa markaa dagaalka aan ku raacin ONLF ee joogay waa loo diiday inay ka qayb qaataan. waxaana loogu diiday waxaa la ogaa inay damiir Soomaalinimo ay ku jirto. marka leegada iyo groupka yar ee ONLFta ah ee Khadar Macalin iyo dad uun iyagu markaa danahooda fiirsanayay ay ka mid ahaayeen ayuu ururkan horta aasaaskiisu ahaa. qori afkii baana lagu aasaasay, waadna wada ogtihiin. waxaa dhex fadhiyay maalinkii la aasaasayay anigu Jigjiga waan joogay. waxaa joogay nin Tafarra Walwa la yidhaahdo wasiir gaashaandhigga EPRDF markaa u joogay ahaa. waxaa kaloo dhex fadhiyay raggii ugu waaweynaa TPLF oo Abays ahay ay ka mid ahaayeen iyo raggii kale. xisbigan markaa ma ahayn xisbi Soomaali ay leedahay. xisbi wuxuu ahaa khasab dadka sanka laga geliyey si loogu fushado danihii laga lahaa 27 sano ee soo dhaafnay. runtii wuuna fuliyey xisbigaasi. xisbigan markaa muxuu yahay? horta waa xisbi qalfoof ah oo aan taageero shacab aan lahayn. ta koobaad markaan leenahay taageero shacab ma leh, in yaroo dowladda u shaqaysa iyo in yaroo dana kale mooye. maanta haddii si xor ah dadka loo weydiiyo ka bilow Ayshaca kasoo bilow ilaa iyo Feerfeer ilaa iyo Mooyaale, meel uu ku leeyahay taageero rasmi ah ma jirto. waayo
wuxuu haddii uusan organic uusan ahayn oo uuna ka imanin dadka dhexdiisa sida hadda oil laf uga dhex timin shacabkaas wax taageero u yeelanaya ma jiro. Therefore structure unbaa jira mooye waa structure-kun waa qalfoof aan ruux iyo naf midna aysan ku jirin. marka xisbigani waa kuma xisbigani waa kii suuro geliyey wixii ka dhacay regionkeena last 25 years baan malaynaya inuu dhisan yahay. waa kii gabdhaheena lagu kufsaday, waa kii damiirkeennii maaragtay soomaalinimada ahaa intii nalaga wada siibay maaragtay waxaan ogeyn lagu sameeyey, waa kii jeelogaadeen furay. waad ogtiin wixii ka dhacay xisbiga markii la sameeyey waa jeelogaadeen la sameeyey. haba sii kala dardaraadaana waan ka xumahay dhalin baa soo galay. haba sii kala dardaraadaana waqtigii uu cabdi ilay uu joogay dhibkii u geystay waad ogtihiin. waa kii dadkeena lagu laayay, waa kii maydkeena lagu duldhaanteynayay. marka xisbigana faasidkii xubnaha ka midka ah waa xubnihii ama joogay waqtigii la aas-aasay. marka laga hadda guddiga fulinta oo kale tusaale haddaan usoo qaadano, marka laga reebo ninka la yidhaha ina hurre, intooda kale waa xisbigii kale faasidka ahaa ee jiray weeye. tusaale waxaan usoo qaadan karaa guddoomiyaha axmed shide, xogayaha guud ee xisbigu ahaan jiray, markii dambena golaha dhexu ku jiray. waxaadna og tihiin intii uu xisbigu jiray oo dhan inuu axmed shide uu qayb ka ahaa xisbigaas. hal maalinna uusan odhanin dadka soomaaliyeed dhibka lagu hayaha laga daayo. mustafa cagjar markii dambe unbuu ka tegay, markii uu wasiir ku-xigeenka ama uu agaasimaha guud ka ahaa wasaaradda waxbarashada uu joogay cabdifatax sheekh cabdullaahi uu wasiirka ahaa, xisbigaas ka mid ahaa. qof aan xisbiga ka mid ahayn madaxna kama noqon karin, shaqaalana kama noqon karin. markii uu ITT-da madaxda ka ahaa xisbigaasu qayb ka ahaa. marka xisbiga faasidka ah ee isaguna uu faasiqa u yaqaano qayb buu ka ahaa. markii dambe uu ka tegay, laakiin xisbiga qayb ka ahaa. guddiga fulinta markii loo yimaado, ninka la yidhaahdo faatax mubashir, labaduba laba wasiir oo cabdiilo u shaqayn jiray bay ahaayeen. cabdicaadil ninka la yidhaahdo guddoomiye degmuu ahaa, basaaskii cabdiilayna uu ahaa. ina ciid wuuba ku dhashayba waqtigaa leegadu nin yaroo dhalinyaro u ahaa, laakiin dee yacni ruuxii arxaab wuxuu ka samaysan yahayba xisbiga faasidka ah. marka markii loo eego aadan faarax waa madaxweyne ku-xigeenkii hore cabdiilay, waa ninkii cabdiilay la saxeexay in dhulkaas soomaalida ee hadda maaragtay dhibku ka taagan yahay in maaragtay la bixiyo yani dadkii ka dambeeyey wey. waan ka xumahay wax yar ii kaadi. marka dhammaantood ninkaa in hurre la yidhaahdo mooye intooda kale saan sheegnay xisbiga faasidka ah ee hadda ay ka mid yihiin bay awalna ka mid ahaayeen, waana maaragtay dadkii ku jiray weeye xisbigaas. marka xisbigani muxuu inoo soo kordhinayaa weye soomaali markaynu nahay? wax allaalay wuxuu inoo soo kordhinayaa ma jirto. maanta doctor abiy un baa inaga hortaagane yani kabahay nala dulmari lahaayeen. dadka in la xidho, in la laayo, in la qaxiyo un baa laga dhigi lahaa, iyagoo isticmaalaya tabtigu cabdiilay kaga tegay ahaa ciidanka liu booliska in dadka lagu laayo, lagu caburiyo. intaa inay samayn lahaayeen oo xaqiiqo weeye. ee maanta abiy un baa inaga hortaaga. abiy maanta hadday ama tiisu timaado ama cid kale ay meesha timaado, haddii aynan xisbigan faasidka hadda iska qabanin halkiibuu ka miisi doonaa. uu 25 sano maaragtay waxaan rabaa inaan u sheego dadka dibadda degan, waxaad ogtihiin sanadkan sanadkiisii markii sanad guuradiisa ahayd, waxaan u malaynayaa 2018kii March or April bay ahayd. waxaad ogeydeen magaalada Minneapolis in dadka lagu khasbayay ninkii aan shirka kasoo qayb galin in hooyadii la xidhayo. ood ogtihiin oo qabri bayax iyo jigjigaba ay dadku ay ku xidhnaayeen. maxaad xisbiga shirka u tegi weyda ood noo soo taageeri weyda? marka maanta dadka la taagan xisbigana waa xisbi soomaaliyeed, magac soomaaliya uu wataa, laakiin qalfooftiisu waa xisbi ay axmaaro iyo tigree iyo dad kaloo ajnabi ay leeyihiin weye, lahaanna doonaan. haddeer wuxuu u socdaa xisbigaasi in uu la midoobo
EPRDF haddii uu EPRDF la midoobo muxuu kula midoobayaa shacabka uu haysto uu kula midoobaya waa kee maanta haddii sidaan hore usoo sheegay dadka Soomaaliyeed la weydiiyo oo afti laga qaado xaqiiq ah waxay u baahan tahay hal qof waxay u baahan tahay dad inuu 10% inuuna helin 10% marka xisbigan lala midoobayo ra'iisul wasaaraha iyo maaragtay iyo xisbiga EPRDF waxaan leenahay wariyaad la midoobaysaan shacabba ma haystaan kamaan gaano mitwaahadud they don't have support they don't have support at all marka yani la midoobo haddii intuu la midoobo adsaawayna looga soo magacaabo qofka noqonaya musharaxa noqonaya waxaas ma wax Soomaali qancin karaa midowga in aynu ku yeelano Ethiopia kursi oo aynu yani ka qayb ka noqono meesha wax lagu qaybsanayo anu personal waan taageersanahay oo midowgaasi dambu inoo yahay baan anu yaan maaragtay ayaan leeyahay midow inaynu Soomaalidu xisbiga wadanka haysta inay qayb ka noqoto waan taageersanahay laakiin yaa la midoobaya weeye waa inuu noqdo xisbi taageero shacab haysta haddii kale wuxuu noqonayaa ashqaas Soomaalida lagu garaaco oo lagu dhibaateeyo noqonaya marka dadka Soomaalida waxaan uga digayaa war xisbigani inta uusan haddana uunan axmaare iyo inoola gelin aynu tusno EPRDF iyo ra'iisul wasaarahaba xisbigan inuun Soomaali inuuna matelin aynu tusno xisbigan inuuna Soomaali matelin aynu tusno xisbiga intaa aan soo sheegay ummadda Soomaaliyeed dib soo gaarsiiyay maanta inuu haddana uu yidhaahdo aniga matalaya Soomaali oo maaragtay EPRDF aan la midoobaya wax Soomaali qancin kara ma aha haddii Ilaahay yidhaahdo doorashada waxay u badan tahay in dib loo dhigo sida hadda yani oo daraska uu yahay haddii doorashada dib loo dhigo oo uu maaragtay xisbigan faasidkii hadda uu meesha sanad ama 2 sano kale uu meesha sii joogo dhibkeenu uu sii badanaya marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa si nabadgelyo ah inay isaga dulqaadaan xisbigan faasidka oo yiraahdaan diidnay oo maaragtay ay banaanka iska dhigaan waxa kale oo rabaa inaan ka hadlo dhalinyarada waxaan rabaa dulmadiid inaan la hadlo iyo dadkii halgankan dulmadiid qaybta ka ahaa waxaad walaalayaal waxaad ogtihiin in ummadda Soomaaliyeed aynu u horseednay inaynu qalin kaga qabanno cadawgii meesha haysta ee Cabdiilay iyo maaragtay EPRDF oo xagga dambe ka taagnayd inaynu u istaagnay baad ogtihiin waxaad ogtihiin Soomaali markaynu u soo bandhignay in xitaa walaalaheen kuwii inoogu xigay inay yidhaahdeen waa inta baaqiga ah iska kaaya daba raacinina haddaa idinku ninkii aada la dagaalamaysaan la dagaalama bannaankaynu isu soo dhignay dagaal maaragtay qalin ah ayaynu bilownay ilaahay wuu inagu guuleeyey markii dambe gobolladii kale way nagu raaceen oo ay city iyo qoraxay iyo hil shacab iyo ay ka mid ahaayeen waxaad ogtihiin in aynu qaybta ugu muhiimsan inaynu inagu lahayn inaynu ummadda ka dulqaadno dhibkaa saaraa ee cid kasta geeska Africa oo dhan ay ka wada baqanaysa libaaxi inaynu inagu miciyaha ka saaray waad ogtihiin hawshii markii aynu ku guulaysanay waxaa dhacday in dadkii dulmadiida hogaaminayay la kala furfuray oo loo diiday inay xisbi siyaasadeed oo adag inay noqdaan yani lagala dagaalamay iyagoo dhaqaale maaragtay loo adeegsanayo iyadoo loo adeegsanayo mansabka dowladeed in cagjar uu mas'uul ka yahay in xitaa waxaad ogeedeen bisheedii markii aynu qabanaynay shirkii guud ee dulmadiida aynu jijiyay ku qabanaynay dhibaatadii naga gaadhay waad ogeydeen yani waxaynu ku qabanay xoog baynu ku qabanay mooye nalooma ogoleen xitaa shirka inaan qabano marka dhalinyaradii waxaan leeyahay dhalinyaradii reer dulmadiid waxaan leeyahay kow horta walaalihiin oo in laysku kiindiro oo maaragtay laydinka hor keeno ha yeelina dhowr qodob ha u yeelina waa qodobka koowaade waxay naga dhaxeeyaa maaragtay shacabka ONLF waxay naga dhaxeeya dhul dhalasho
iyo soomaalinimo meel ku kala tegi mayno. hadday iyagu khaldameen 30 years ago oo markii ay dowladda dhiseen intay goday ula carareen ay 85% iyagu ay qaateen sidii maaragtay ay sidii dhacday way ku khaldanaayeen. maanta anu waxaan aaminsanahay ONLF iyo dulmadiid inay yihiin mustaqbalka, inay mustaqbal yihiin baan aaminsanahay. xisbigan faasidka anu uu yahay wax laga soo gudbay oo pass ah. marka intii aynu ku habsaami lahayn xisbi faasid oon ognahay inuu qarfoof yahay soomaalina uuna matelin, miyaynan habbooneyn in aynu xisbi siyaasadeed oo adag oo dulmadiida intaynu samayno aynu bahwadaag la noqonno walaaliheen ONLF? maxaa dhiba ku jira? waxaad ogtihiin xisbigan faasidkii ihi in uu idiin diiday mansabkii iyo mudnaantii aad ku lahaydeen Somali State. waxaad ogtihiin in mansabyada dastuuriga la yidhahdo ee madaxweynaha ku-xigeenka haddii rabbi xukm hayo baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda, guddoomiyaha xisbiga, madax xarunta dhexe ahna madaxweyne ku-xigeen inaydan hal qof ku lahayn. yaa idiin diiday? waxaa idiin diiday ina cagjar iyo ina shide, axmed shide, labadaasaa idiin diiday. waxayna idinku diideen, waxay idin arkeen inaydan waxba ahayn oo aydan yacni markaan leeyahay waxba ahayn inaydan ka damqanaynin wixii aada xaq u lahaydeen. sorry, halkaa waan ku noqonaya. inaydan ka damqanaynin wixii aada xaq u lahaydeen markay idin arkeen ayay idiin diideen oo ay yacni for example hadda waxaan su-aal usoo qaadan karaa gobolka liibaan saddexda xubnaha aan sheegay saddex buu iyu haystaa. axmed shido guddoomiyihii baarlamaanka, madaxii xarunta dhexe ahna madaxweyne ku-xigeenkii. marka yacni sababaad usii daba socotaan anu ma garanayo sabab aad inac jar oo 24 saac huuhaa iyo been idiin sheegaya sabab aad usii daba taagnaataan anu ma garanayo. waan ogahay dadka shacabkii inaynan wax taageeraa inac jar u haynin. waan ogahay in ballanqaadyadii uu maaragtay idiin ballanqaaday oo dhan uu ka baxay. waan ogahay in yacni maanta marka uu ku leeyahay, markuu ina leeyahay ONLF soomaalinimay maaragtay soomaalinimadii bay bedelaysaa, dadka macaruur buu moodayaa. magaca stateka waxaa bedeli kara oo keliya baarlamaanka stateka oo weliba 2/3 boqolkiiba 67 plus ku ansixiya una gudbiya baarlamaanka federaalka. baarlamaanka federaalkan wuxuu ku pass garayn karaa in constitution amendment la sameeyo 2/3. arrinkaas sida maaragtay lagu bedelaayay waa wax adag weeye. Somali State wuxuu ku qorayaa constitutionka Ethiopia waxaana bedeli kara oo kaliya constitutionka kore oo amendment lagu sameeyo. baarlamaanka soo socda ee haddii ilaahay yidhaahdo doorashada marka ay dhacdo Soomaali intay isu timaado unbaa wixii talaa iyagu ay samaysan karaan. ta kale magaca Somali State waa lama taabtaan weeye. ONLFna ma bedelayso, cid u socotaay ma jirto. xisbi siyaasadeed marka ay yihiin magaca ay rabaan bay la bixi karaan. dulmadiida hadda maanta haddii ay rabaan jidwaaqeyn iyo hala baxaan, xisbi siyaasadeed ha samaystaan, cid u diidaysaa ma jirto. marka in aad maaragtay aad u ogaataan in ay tahay gimmick waxaa la yidhahda ingiriiska lagu yidhaahdo ama marin habaabin uu inac jar ummadda marin habaabinayo inaad u fahantaan baa loo baahan yahay. markuu leeyahay Soomaali baan nahay, away Soomaali inta ku xeersan oo dhan waa reerkooda. inta kale maaragtay gobolka liibaan ka timidna axmed shida dartii iyo aadan faarax oo city ah ayay dadku ku joogaan mooye hal qof oo kale kama maaragtay agtiisa ma soo mareen. waad ogtihiin. waxaad ogtihiin reer dulmadiido in xitaa markay ugu darayda cabdiilay uu madaxda meesha ka ahaa inaad mar guddoomiyaha xisbiga lahaydeen, inaad mar lahaydeen haddii rabbi xukm hayo afhayeenka baarlamaanka, in aad yacni mansabyo inaad wasiir federaal lahaydeen. wixii oo dhan maanta awey hal qof kama haysaan.
xasan daadhi oo maqaar saara iyo mubashir oo isagu maaragtay danihiisa un wata mooye maanta waxa aad ku leedihiin bal Somali State soo sheega. anu waxaan aaminsanahay maanta oo aan deep my heart aan aaminsanahay haddii dulmidiid iyo ONLF ay israacaan in aynu ka heli karro wax ka badan wixii aynu xaq u lahayn, wax ka badan inaynu helo mooye wax ka yaraynayna inayn ma ayaan anu aaminsanahay. laakiin Ethiopia xisbiya siyaasadeed baa wax lagu qaybsadaa, samayso mid samaysta oo dhiil samaysta, dhiilkii aad wax ku lisi lahaydeen samaysta oo Soomaali ka bacdi wax la qaybsada. weli waxaan la hadlayaa dhalinyartii reer Dulmidiid baan la hadlayaa. waxa kaloon maanta aan rabaa inaan halkaa aan ka sheego dhalinyarta Dulmidiid inaynan maqlin nin tuug ah oo hambasuga ah oo in cagjar hoos fadhiya, inaynan maqlin madax dhaqameed qandaraasla ah oo intii la yidhaahdo guri soo dhis ummadda ku gadanaya, inaynan maqlin cid kasta oo maaragtay ummadda danteeda iyo masiirkeeda aan maaragtay aan maaragtay aan ka talinay inaynan maqlin. waxaan rabaa inaan idiin sheego danteenu kuma jirto in cagjar iyo xisbiga faasidka. axmed shide waxaanu siinay waqti inuu wax ku saxa ah. waxaad ogtihiin in budgetkii 2011 tirsiga Ethiopia dhammaantiis in maaragtay la luudgareeyay ama la boobay ama la biliqaysay baad ogtihiin. corruption ma aha, waa looting, macnaheedu waa bililiqa weeye. waxaad ogtihiin jawaabka dadka ay ku dhaceen inay yihiin xaafad keliya. waxaad ogtihiin in aan waxba laydinku maqnayn. waxaad ogtihiin in maanta waddo la mara la la'yahay, ceel ummaddii loo qoday aysan jirin, iskuulladii xitaa publica ahaa ee cabdiilay dhisay maanta in dad shaksiyaada lagu wareejiyo waad ogtihiin. xaafadda magaalo qasab la yidhaahdo iskuulkii cabdiilay uu magdhowa ugu dhisay dhulkii uu ka boobay, maanta waxaad ogtihiin in dad lagu wareejiyey shacab ah. war xaggeed laadihiin? war diida in cagjar iska diida iyo dulmigiisa si nabadgelyo ah. waxaad tirahdaan kaa yeeli mayno, xaq baad u leeyahay, waa dastuuri, constitutionka idiin ogol in wixii aan gaf idinku ah inaad diidaan. Soomaali weli Dulmidiid baan la hadlaya, ogaada. Soomaali hormuud baad u ahaydeen inaad maaragtay xukunkii cabdiile inaad ka qabataan. maantana waxaa laydinka rabaa inaad u noqotaan hormuud xisbiga faasidka ah sidii meesha loo dhaafin lahaa. marka waxaan leeyahay walaalayaal, hadda maanta haddii aynu bilowno xisbigan faasidka corruptionka uu ku jiro maanta oo dhan ka dhammaan mayno. tusaale yar baan idiin soo qaadanaya, tusaale yar iska daa budgetkii iyo wixii markii lootinka lagu sameeyey. shidaalka, xitaa shidaalka qodobka aada u dhagaysta, subsidiga ahee loogu talagalay dadka masaakiinta ee bajaajleyda iyo basaska iyo in oo Ethiopia intay soo subsidize garayso ay ummaddaas Soomaaliyeed ee tabaalaysan lacag yar in lagaga iibiyo loogu talagalay, dhammaantii xuduudadu ka tallaabaa. Somaliland, Puntland ayuu galaa. yaa ka dambeeya arrinkaas? waa ninka la yidhaahdo Bisle oo maaragtay ku jira halkii Sanyara oo cabdiile ugu jiray, iyo nin la yidhaahdo hebel kontrabaanlo oo ah ninkii xidhxidhay dhalinyartii Soomaaliyeed ama basaasay isagii iyo Bisle iyo ina cagjar iyo ninkaa hebel kontrabaanlo la yidhaahdo hadda shidaalka geeya waqooyi, ninkii dhalinyartii Soomaaliyeed ee jibriga ka shaqeynaysay ina maxamed mahad iyo ninkii kale dhalinyarada hadda magaciisa ma hayo, raggii basaasay ee xidhxidhay weeye. marka yacni ummaddii halkaasaa maaragtay mid aan hadda intaa reerkooda ahe isagoo ku xeersan 6 guri aan intii sanadkii ay meesha joogaan aan dhisan kuma jiro. war dadku xaggeyla ay yihiin? war maxaa idiin diiday inaad u kacdaan dadkiina? maxaa idiin diiday inaad tiraahdaan no
oo kuwan dadka xilxidhaya oo markii hal qof intuu hadlo intii gurigiisa loogu tago habeenkii loogu dhaco maaragtay lasoo laalaadinayo maxaa idin diiday inaad diidaan Ethiopia ma ogolo nidaamkan hadda in cagtar uu meesha ka wado ma ogola in qofka lagu xidho fikirkiisa iyo waxa uu yiri haddii uusan dhibaato kale dadka uuna u geysanaynin marka inaad diidaan arrinka maxaa idin diiday reejijow maxaa idin ku dhacay madaxda dulmadiid baan la hadlayaa ninka la yiraahdo Cumar Dool oo jigjiga hadda ku sugan I hope inuu maqlayo waxaan ku leeyahay niyo fadhiga iskaga kac ummadan liid garee xisbi siyaasadeed oo adag ha loo sameeyo xisbiga siyaasadeed aynu garabsaar la yeelano walaalaheen jawxo sidaasna dawlad aan ku dhisano Soomaali waxaan u baaqayaa war haddii OLF ay soo hagaajisay oo ay soo dhistay inta يعني أن OLF قيبتها كأهينا إنتاد سوتي مادان أي نس وذا سمايسن حزب سياسات أو دولمدين وقيب كي هاي ديار بانون هاي أي نوذا سمايسن هذين نقطة شنير هذين نقطة مارتي ليبان هذين نقطة داو هذين نقطة جيجيجا هذين نقطة قبل الله كله عد كستا أو صومالي أو أن مارتي مانتا حزب أهان كما وضع أنو قبيل أهان كما وضع حزب أهان أن قيب كأهين أو NLF دولمدي دad badan oo Soomaaliya qayb ka ah reer qorraxay ba u badan barbaartii city ba ku jirta marka inaynu samaysano xisbi kale oo xoog badan oo xisbigan faasidka ah ka saara oo ma aragtay meelaha kale ee gobolada kale oo dhan ka tartama ka bacdina ma aragtay Soomaali loo dhiso dawlad iyadoo ay leedahay oo aan loo yeelinin oo una tawalla dhex fadhiyin oo na bays ahay dhex fadhiyin oo mid kale oo magac kale la una dhex fadhiyin oo aan la oreyn hebel halka gee yani oo iyadoo ay leedahay oo ka soo go'o ha loo sameeyo baan anigu maanta soo jeedinaya Soomaalina taasaan u soo jeedinaya hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa reer dulmadiido fadhiga ka kaca ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay gurmad sidii xisbiga faasidka looga badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay gurmad sidii maaragtay beentan iyo ogaada in cagtar looga dulqaadi lahaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in aynu hormuud u noqono waligeed ma inaga hormuud u ahaan jireen laga soo bilaabay ilaa Axmed Gurey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1964 1977 waxaan ognahay xisbi siyaasi oo diyaar hadda inuu jiro oo xirsi dool madax ka yahay waxaan aaminsanahay fartii in cagtar inay halkaa ku dhex jirto oo xirsi dool si yacni aan sax ahayn oo in cagtar ugu ballan qaaday waxyaabo aan loo baahnayn si uuna xisbigaasi uuna u taabagelin xisbigaasina waa xisbi Soomaaliyeed oo Soomaali galbeed la oran jiray weeye waa xisbigii Soomaali galbeed ee dhammaanteen aynu ku soo dagaal galay markii la dhisay aanu jigjigaan joogay goolihiisa dhex ka mid baan ahaa xirsi dool wuu og yahay isagana xogayaha guud buu ahaa Allah u naxariisto waxaan gudoomiye u dooranay xasan jire ragga dadkan Soomaaliyeed ee magaca eelaha ee maanta joogo dhammaantood qayb ka ahaayeen war haddii xisbigaasi uu diyaar u yahay in boorka laga afuufana kaas aynu qaadano haddii kalena xisbi cusub intaynu samayno oo aynu maaragtay bahwadaag aynu samaysano ONLF iyo xisbigaas ku doonaba ha noqdo aynu umadeena sida ku samata bixinaan aanu soo jeedinahay waa talo anigu khadar ahaan marka maanta waxaan diyaar u ahay dhinacayga inaan ka qayb qaato isku soo dhaweynta dadka walaalaha ah inaan dib dambe nala u xuqinin waa jooxo oo waa maaragtay waa hebel iyo waa ree hebel iyo waa sidan iyo waa ogaadeen inaan nala u xuqinin ogaadeen annaga nala dhasheen annagay naga dhasheen waa dadkanagii la-aantoodna waad ogtihiin Somali State inuuna taayir ka rogmi karin
marka inaan isu soo dhaweyno dadkeena oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed aan maaragtay aan kurunteenu u noqono aynu maaragtay aan sameeyada ka talino baan anu maanta diyaar arrinka u ahay sidii aan horay maaragtay maal iyo maskax iyo muruq aan ugu horay ayaan maantana diyaar u ahay inaan arrinka aan qayb ka noqdo hadduu Ilaahay yiraahdo xalka aan qayb ka noqdo wixii dhibaato aan dadka aan u ifino oo aan dhanaano Soomaaliya arrinkaas inama qabato waxaan filayaa hadalka waa idinku dheereeyay waxaan idin rajaynayaa khayr fara badan oo in la fiijo waxaan u rajaynaynaa maaragtay guul ummadda Soomaaliyeed oo dhan guul baan u rajaynaynaa hal qodob oo kale oo waxa hadda aan ka tagay baa jira oo in cagjar dadka uu huuhaa iyo halaasi uu maalmahan uu dhaxwaday jigjiga oo leeyahay ONLF haddii ay ku guuleysato waxay rari doontaa caasimadda xagee u rarayaan caasimadda ONLF iyaga iska leh waa Soomaali dad kale bay qayb ka yihiin haddii dhalasho la yidhaahdana dadka ugu xigo weeye jigjiga hal mar bay khaldameen oo ay goday geeyeen isla iyagun baana markaan soo celiyay inuu Maxamed Qani waa ninkii maaragtay keenay jigjiga oo maaragtay iyo ururkii ONLF markaa aqlabiyadda ku lahaa baarlamaanka marka in yacni taana aad ka digtoonaataan oo aan huuhaada maaragtay aan maaragtay dadka una in cagjar una nagu lugoynin baa loo baahan yahay jigjiga will stay caasimadda will stay in jigjiga and will stay it's here to stay magaca Somali state will stay insha Allah cid bedelaysaana ma jirto cid bedeli kartaana ma jirto qowmiyad Soomaali la yiraahdaan nahay waxay naga bedeli karaan ma jiro xisbiga siyaasadeed magacu doon qaadan karaa cagjar buu qaadan karaa wuxuu doon qaadan karaa laakiin xisbigaasi maamulka umbu hadduu ku guuleysto uu soo dhisayaa mooyee maaragtay magac Soomaali cid bedeli kartaa ma jirto caasimadna cid raraysaa ma jirto aniga arrinka caawa idin siinaya guarantee marka waxaan idin leeyahay war Soomaalina maaragtay hal isku soo dhaweeyo oo maaragtay kolba intii isku soo dhaweeyay isqabsato Soomaalidu yacni waa hal qoys weeye waa hal qowmiyad weeye qowmiyadaasi markaas si aynu uga maartay aynu Ethiopia xuquuqaha nagaga maqan aynu u helo xisbi shacab danta Soomaaliyeed ka talinaya oo weyn aynu sameeyno oo aynu doorashada markaynu soo galno hadduu Ilaahay yiraahdo aynu sida maaragtay coalition dawlad coalition sida Jubilee oo kale ay Kenya hadda uga dhisan tahay oo kale aynu ku dhisano kuwaas oo ah dad Soomaali ah oo iyagu fikirku ka yimid meel kalena maaragtay aan looga soo yeerin marka waxaan idin rajaynayaa khayr fara badan waxaan idin leeyahay maaragtay guul iyo maaragtay gobonnimo Soomaalidu waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah yaan la kala qaadin hal isku soo wada dhaweeyo reer Dulmadiida oo idinkuna u diyaar garooba in aad maaragtay aad ummadda Soomaaliyeed inaad hormuud u noqotaan oo aad ka noqotaan maaragtay aad hormuud u noqotaan qodobada kale ee maaragtay ilaa shalay aan ka hadlayay waxaa ka mid ah sorry waan ku soo noqday waxaad arkayseen yacni markaad aragtaan dad Soomaali oo sidii ay shalay ONLF ay u qabsatay shirkooda iyo doorashadooda yacni sida ay u ahayd yacni ay there was an adult in the room dad sharaf leh oo helo sharaf halka isugu yimid oo Soomaaliya in loo hambalyeeyana way mudan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay hambalyo guuleysta Soomaali baad qayb ka tihiin annaguna waxaan diyaar u nahay in insha Allah dhinaca ayaga aan qabanno ka bacdina aan sidaa ku helo aynu Soomaalida aspirationkeedii iyo hamigeedii iyo mabaadi'dii inaynu gaarsiino ayaan diyaar u nahay hadduu Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intii daawanaysay iyo inta daawan doonta waxaan leeyahay maalinku hadin fiicnaado ama habeenku hadin fiicnaado haddii Ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh